بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliland meel walba joogaan ba dibadda gudo dalka oo dhan iyo dadweynaha caasimada qalbiga iyo niyadda lagu soo dhaweyseen dal jacaylkiina iyo ilaalinta aqalnimada ilaalinaysaan haddii aan waftiga nahay aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa walaalayaal waxaan la soo noqonnay warsan iyo weersan dadka Soomaaliland iyo inta Soomaaliland jecel iyo inta xaqa u hiiraysa safarkan wuxuu ahaa mid guul u ahaa oo taariikhda gali doona cadawga Soomaaliland wuxuu ahaa mid dhabarka ka jabiyay oo ka nixiyay walaalayaal haddii in badan oo soo halgabaynay iyo sanado badan oo halgan naf iyo maal baa soo horay iyo sanado badan oo dalka dhisaynay oo aan dadkeena nabadaynay iyo sanado badan oo inta dalka dhisnay wixii dawladnimo wax badan dhinaayeen oo dadkeena u adkaysanayay oo qof walba Soomaaliland qurbaha jooga ama dalka ha jooga u dhawaadayay maanta waxaan ugu bushaaraynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dawladaha waaweyn super powerkii ay dhahay laga leeyahay dawladdii adduunka ugu weyn inay maanta inay soo jeedaan oo deedeys idina goobjoog maqlagihiin oo maqlay aragiin oo warkaayo wixii ka dhacayay dalka Mareykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhageysanay oo dhagaha cadawgeena uu ka haystay dawladaha waaweyn maanta waxaad arkayseen iyada oo dhagaha dawladda Mareykanku ay aad u raacayeen oo dhageysanayaan codka Soomaaliland iyo dalkooda walaalayaal hadday dad badan oo hore uga jireen waxyaabaha dabaysha xagganayna haysaa waxbaa naga siyaa waxaan ku bushaarayaa maanta dabayshu inay dhabarka inaga hayso inay riixayso oo loo hore u socda guushu way dhawdahay walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnay muddo 12 cisho laba cisho saddex cisho la socday dhexda lagu jiray mooyaane intii kalena hawlgalay waxaanu galnay 23 shir oo aan galnay waxyaha kala duwan ee dawladda Mareykanka iyo baayac-musharkooda iyo jaamacadahooda iyo macahadooda baarista iyo hal shir oo jimcada gobolka dhaxayso New York ahaa inta waxaa noo dheeraa intaa inka yareen oo habeenaya maalin ah oo ugu badnaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qurbajooga ahaa oo meelo badan isaga yimid gaar ahaan dalka Mareykanka dhammaan isaga yimid iyo Canada iyo qaar waliba meelo kale ka soo duulay intaas toddoba ka maqnay gabal iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalay naftu jeclaysanaysaa wadi waxaan dhageysanaysaa oo aragteen maanta dawladda Mareykanka oo dawladeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wuxuu soo maray waqtigiin anna goobjoog baanu ka nahay waxayna soo fareenay naga sugayaan maanta waa ictiraaf oo qura bariyadu ku naariman waxna sideedu ku naariman na taageeradu ku naariman inta baa naga dhisanay ummadaas xaq waxa weeye dawladii qaranka weyn baa tiiray ictiraaf hawlahaas loo dhameeyo waxaanu diyaar u nahay inaanu wax wan oo labadooda qabsaanba idila qabsano annagoo karaamo iyo ixtiraam oo qadareena inaynu wadaagno wax walba oo ka mid yihiin koow hadday siyaasadda guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga bariga iyo badaba tahay hadday mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inagoo labadooda qadarinaya inaynu wadagalo oo hawsheedii bilowno oo aynu qalbiga wada qaadano oo dawladda soo jira loo bilaabo maanta se waxaan idinku yeedhay inaan albaabka idin furo oo aan u baahanahay inaan iskaashanada loo dawladda taasaan idin sidaa oo idina arkaysay walaalayaal waxaad goobjoogtiin oo wada haysaan telefoonada iyo internetka wada haysaan in dawladda Mareykanka labadeeda golo baarlamaan senatorska iyo congressku ay laba sharci oo ku farayaan dawladda in degdeg Soomaaliland
loola wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama fariimo loo diraayo oo golayaasha maraykanku u dirayaan muddo yar aanu joognay in ay dowladda arrimaha dibaddu si weyn wax ula qabsato oo howlgasha Somaliland iyo cidda u soo maraynin waana tallaabo maanta inoo kooban iyo albaab inoo furmay waxaanu idiin sidnaa oo aanu ka soo celinay caalamka maanta shirkeedii iyo shirkadaanu ku jiray iyo fariintii aan qarankana noo dhiibay ee dastuurkuna faray ee qaranku noo dhiibay qadiidada gaarsiiya ummadda weliba meelaha ugu waaweyn jimcada qurumaha ka dhaxaysa Maraykanka in maanta intaanu geynay weliba miidiyaha Maraykankuna aanay ka warwareegin maanta af kasta oo adduunka lagu hadla laga dhageystay iyo dal walba oo adduunka oo ay gaarsiiyeen miidiyaha Maraykanka walaalayaal iyadoo caadi ku rushahay idinkoo wararka intiisu badal hayay waxaanu maanta inoo sidnaa inuu inoo furmay xiriir cusub oo bilow ah oo laakiin dowlad iyo dad bay looga baahan hawl badan Maraykanku iyo dadkan dhageysanaya intaasoo loo sameeyay shir iyo facility maxay loo qadarinayeen annagu ashkhas baan nahay waxay qadarinayeen shacabka Soomaaliyeed meel jooga gudaha iyo dibadba iyo halka ay soo galeen iyo dalka ay dhisteen iyo tala wadaaga iyo dimuqraadiyadooda iyo in madaxdooda doortaan iyo in wixii loo khilaafkooda xaliyaan oo u dhabar adeegeen duruufaha adag ee haysta qadarinta ku mutaysateen hawsha ay soo galay ee shicibkooda ku mutaysay ayaa la ugu qadarinayay oo anaga lagu ixtiraamayay idinka la ugu qadariyaa lagu joogay waxaa loo baahanahay inaynu halkaan ka sii wadno maanta meel ilaahay lagu mahadiyaabaynu joognaa waxaynu caalamka oo dhamme maanta dal kasta iyo af kasta laga dhageysto laga hadlayaa qadiyadda Somaliland waxa ku xiga iyada oo ictiraafka inoo muuqda maanta maalintii hore halkan aad ku yimid ee aan kula kale ka yimid ee cilaaqaadka qolada xamreeyayso waxaynu ka mudan qaaday halkan tagnay إلى موين وضعنا أدوك الدولة بولتجنا عالم كهون طول بولتجنا قدرنا وردنا إياه من ذا علاقات كوتشرة ما كنا ملاك كوتشرة هذا يكون عيان كذا هو بولتجنا هذه أدواركم هذا بينا وقت هذا بسكر هو الآن ضرب الأول مهرية وما تنتهي هوشة كتبادين وحينا برانا سومالي لازم هوشة ذي الاسمه ووضنه dadka oo walaalo gacmaha qabsada inagoo qadiyadeeda u dhawaanaya tayra haday qof waliba dhawaatada qabaysan oo qarashka maraytiisa ayaa inoo balana aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.